catiib iyo raqiib baa garbaheena saaran ayagaa u qoraya maxaa aakhira miisaanka ayagaa u galaayo iska dhaafa marka ka dhex baxina aabo ilaahay baan kugu dhaariyey مع هبي هذا الكاس هذا المساري والله bes inaadeer khayr allah ku هذا siiyo intay الأوغاد maqli مع هبي أنا إيش وتشي برامج كاس ودن أيضا وحاو كسنتن ما قبل أبعاو inta هذا ii الصوماليين maqlaysana waxaan ka هذا الصومال تصبح codsanayaa عيدي in تصبح ay عيدي joojiyaan تصبح عيدي بالله ilaahay baan kugu dhaariyey wallaahi buusan marneexan wax والله dhaafin بالله oo كاغر hawiye والله wax أنا dhaafin هذا بلغ عن oo كذا والله majeerteen بالله wax dhaafin بالله واحد oo daaro wax بالله dhaafin oo isaaq wax لا dhaafin wax ay مدارة مرخاتي متى karayaan لبني anaga بين ma وجهك taqaan مدارة أو مرخاتي iyo jigjigagu asna adeerka ya markhaati asna labadina markhaati iga noqda caawa ay ugu dambeysay afaara qabiil sheekadaas habeen dhaweyd been wuxuu sheegay waa iska ooyaani habeen dhaweyd caadi baan u ooyey waayo waxaan u ooyey arrintaas fiirsi aan badan bay u baahan tahay dhamaystoora ma garat haya walaala dee kolley dhamaystoora shiirana waad la socotaayoo wixii baad ogtahay sax marka bal kasoo fikir baana ku dheelaa inta walaal wax yar ma dhamaysan karaa ku soco inaader inaader habeen dhaweyd anigu waan iska ooyey tiktok baan galay life baan daawanayey hooyo dhimatay aabba dhintay asal abuulan dhintay abkow dhintay ab iyo isr baa la isku caynoyaa iyo sinji annaga awlaad ilaahay muxuu noo abuuray awlaad ilaahay uu dadkan hooyooyin iyo waarid nooga dhigay inaan u ducayno inaan cayno ma aha sax waaridku wuxuu noo dhalay inuuna intifaacsadaan adduunyadana nagu intifaacsadaan aakhira markay tagaana aan labada ragac sunnadan tukanayo salaadan tukanayo qur-aankaan akhriyayno inuu ilaahay uu ma garanaysaa ee uu u shafeeco qaado sax sax marka makarafoon ma qaadan karo oo intaan qayliyo cidba imaqli mayso waayo bini aadan imaqlaayo ma leh waayo ma garanayo tiktok wax loo furay anugu maba fahansaniba ma garateen marka khadarow intaan aqaano waan la hadlaa ilaahay wejigii adigaa ii laba ah hadda qofkii aan la hadlay walaalow ilaahay baan kugu dhaariyay xataa haddii lagu caayo adiga waxba kaa dhimi mayso qofka ku nacdalay ee ku caaya asagii dusha ka fuule oo wallaahiya qofkii gabar caayana walaashii buu caayay iyo hooyadii iyo naagtiis iyo cunugtiis gabadhiisa uu dhalay ayuu caayay qofkii gabar cawraa caaya garanaysaa kor uga baxa marka iskaba ilaawaba inaadeerkeen waxaan leeyahay inaadeer waxba ha oranin ka fikir sababtaa inaadeer shaydaan baa magarsa xumaan ku fikira ma fahamti midaa ku ballanqaadaya horta caawo midaa ku ballanqaadaya ilo horta kaaga ballanqaadaya waxay tahay markhaati baan la joogo inta 345 qof markhaati ah jigaago in adeerkaya iyo madaali oo asna in adeerkaya horta iyo adoo in adeertaya waxaan horta idin kaga ballanqaadaya horta inaan qof danba caydiis aan usoo fariisan qol loo soo furan kow ka fiirsa isoo qariya nasabaatayna kaamila ma jirto laakiin mid baa jirto inaana ka baxayn difaacii iyo la jirkii iyo mataqaanaa isku xirkii dhalinyarada aan watay oo sida caadiga aanoo caytamin inaan taa ka baxayn taas waa wadaya okay soo joogsan marka anaa wax yar halkaas wax yar baan kaaga iftiiminaya suugaanyahan baa tahay abwaanna waa tahay sax adoo sida kale wax ku maarayn kara oo gabyo ku maarayn kara suugaan ku maarayn kara wixii xumaana iftiimin kara macnaha sameesi kale laakiin duritaan iyo maxaan ku raday ismudow inaadeer waxba heer lagama gaaro laakiin waxaad samaysaa waxaad isticmaashaa suugaanadaada iyo wixii ilaahay uu kugu manaystay maskaxdaada ilaahay baa wax ku manaystay khadarow waa isnaqaana aniga adi garanaysaa dadkeenii horena maalin dhaweyd waxaan akhrisanayay sheekooyin hore oo ma garanaysaa dadkeenii hore ah aan buugan ka akhrisanayay macnaha dadkeenii hore ma ahayn dad ma garanaysaay ku maareeya hadal xun wax aftahan macnaha aftahan waa garanay maaho dad aftahanimo wax ku maareeyo oo gabiyo suugaan macnaha ereyar yaroo ma garanaysaay kana aan waxba u dhimayn kana aan waxba u dhimayn laakiin wax tusaaya inaad cid ku tilmaami mayso waa ku kaa insha allah biidnillaah waa hadli kartaa waa diyaar waaye mid waa kaa ballanqaaday cay iyo canjalafayn iyo qof bini aadan inaa u gafo xaggaas iska dhiga caaw
laakiin waxyaalaha kale oo sida caadiga dhalinyarada صح squadkii wadajirkii ka shaqayntii mataqaanaa 5D ها صح hawada ayaa taas sawir cad ma صح war markhaatiyadii kule ka ها ahaada صح madaalo iyo صح jishaawi war ما شاء الله gobonimo in adeer nimcana aad baa u salaamaya waxaan u sabab fanaanadeena ahayd fanaanadeeda qaaliga ah nimcaab ها ما شاء الله war horta wax fiican bay ka hadashay talo fiican oo wanaagsanna way ku siisay in adeer anu horta niyo horta qabiilka anigu de wax dembiyana ma arko laakiin qabyaaladaas ka soo horjeeda iyo reer hebel in la dhaho baan diidaa ma in la garatay isku caayo in adeer weliba la iska ها caayo wax taas in aan adeer waxba galabsana boowe aad eeg iyo aad aniga ma nimca sha Allah ahaan maanta eeg aniga nimca ahaan maanta waxaan ahay gabadh Soomaaliyeed sax sax صح aad iyo aad inkastoo qabiil aan leeyahay dad aan ka dhashay haddana gabadh Soomaaliyeed baan ahay aniga aad daarood kaliya meel ima gaarsiin hawiye kaliya meel ima gaarsiin صح isac Soomaaliya oo dhan waa kaliya kursi meel ima gaarsiin Soomaali meel uu ku nool yahay jileec iyo maxaan ku raday nooc walba ay yihiin aniga maanta magacayga kor u qaadaa boowe صح kulligood way la wada dhasheen walaa hawiyaan walaali aniga ii ah isaaqa ila dhashay cidaan ahaa ila dhalatay war qof islaana oo Soomaali sheegto oo dhan ba aniga walaalkay ah صح rag iyo dumar saqiir iyo kabiir aad iyo aad ما شاء الله wallahi marka waa waxaan gobonimo diidanahay waxaasoo gobonimo dhanba waxaan diidanahay haddii ilaahay ii suurta gelin lahaa ilaahay baana baryayaa wallaahi taajidka markaan anna ilaahay fanaanadina insha Allah kadib aan baryayo sheegana hadii rabbi ما شاء الله in adeer wallahi horta yaa talo boo wanaagsan baad bixisay ma garatay halkaaga waa qaatay kunaada go-aankaas waa lagama maarmaan wax wanaagsan aad samaysay thank you so much asxaab kalena jaantaa siinaya ku soco ninka yidhaha jaawi qabyaaladoon iska ilaali nin derbi daarooda tahay xagga qabyaaladoon iska ilaali qabiilku waa iska caadi waa la ogolyahay laakiin caayida iyo maaragtay qabiilada kale ku gafaysid iyo maaragtay qabiilada kale ee la yasay iyo waxaas baan insha Allah iska ilaalinaa fanaanadan aad baan u salaamayaa horta hal su'aal baan gabadha fanaanada weydiinaya oo qolma horta anuu Soomaali baan ahay boowe ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله gabadha aad baan ku araada salaamaya aniga magacaygu waa nimco qabiilkaygu waa Soomaali weyn hadalkeedaan ka fahmiyo qalada ay tahay maasha Allah ilaahay ku dhowro in adeer aniga wallahi nimca la yiraahdaa aniga nimca la yiraahdaa boowe nimca Soomaaliyana la yiraahdaa nimca Soomaaliyana nimca qabiil malihi maasha Allah Allah waa dadku laakiin dhib badan way soo qoriyeen durba waxay ku leeyihiin waa filada weyn waa cidda filada ma Soomaaliya gabadhiya kula shaqeynaya aniga ilaahay hadduu iimo aniga filadaydu waa haddii ilaahay idmo meeshu ilaahay geeyo jannada alle filadayda halkaas waay hal su'aalaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii aad adigu aad maaragtay diyaar tahay inaad yaa weydiinay karaa aniga weydiinay ما فنانادان ودنيا فنانادان صح ما دورت وان مارتي ay ogolaato horta ma ku qorshaysan tahay inaad fanka iska dhaaftid fanaaniin badan baa hortaan aragnay maasha Allah hadda fanka maaragtay ka baxay marka ma ku qorshaysan tahay inaad fanka joojisid insha Allah inaadeen aniga fankaygu awal iyaalin kula jirin fand kuma fiican tahay lugna banaanka ii taali lugna waan kula jiraa arag heesahayga u fiirso xilliga aan soo saaro way kala duwan macnaha waxa laga yaabaa sanadkiiba aad iyo aad waan ogaa sanadkiiba ama labadii sano ama saddexdii sano hal hees soo saaraa laga yaabaa maasha Allah marka abwaankan haddii aan kula talna ka waran xagga qabiilka iska daynta dhilaan lugna kula jir lugna kala baxdan kuraano isna maaragtay labada dhinac isku wado arintaas way kala tahay ma inaad wax qabiilku faa'iido ma la inaadeer waay sababta Soomaaliya heerka gaari lahayd wataas hadda ilaa iyo hadda aan degi laanahay inaadeer ana reehbel ana amiir anta amiir ma wanaagsan inaadeer wax qabiil la dhahan Soomaali waa walaalo su'aasheeda labaad inaadeer siyaasadda ma isku fiicantiin no aniga gabadh xaafadeed baan ay siyaasad shaqo ku mali ما شاء الله فنانينtu waxa weeyaan waa fanaan iska furfuran oo wada fanaan marka qofku uu fanaan yahay ama abwaan yahay Soomaaliya horta Soomaaliya dhan buu u dhaxeeyaa hal qabiil oo kaliya ama daaro ama hawiye bas ama qabiil Soomaaliya dhan buu u dhaxeeyaa ma garan maya qabiil oo dhan buu yahay ba qabiil oo dhan weeyaan oo
heerka aad maanta aad taagan tahay dee daaro hal qabiil ma dhigi karta qabiilkaas ay soo gaarsiiyo soomaali oo dhan baa kuu siman maya ka dhagala iyo maya iyo ka aniga dhagaha qaba ma soomaali garata maxamed baa aan ka dhashay sax soomaali maxamed baana heerkaa maanta ilaahay kasoko iyaga u sabab ee inaan gaaro wiilasha reer sax qurbaha jooga dhalinyarta qurbaha joogta soomaaliyeed waxaan leeyahay anigu qabiil ma yihi nimco soomaali baanahay gabadh soomaaliyeed baanahay fanaanul qaran alxamdulilahi maasha allah rabbilcaalamiin ilaahay soomaali صح maasha ما allah فنان قرن بعد هاي صومالي المقع وكينتي ما شاء الله الله أكبر كي وأنا أقول هاي ونيك اللي مدالا سوق ما مسعورني يا madaalo waa qabiilaysto may weyne waa waa qabiilaysto weyn isagu مسعورني tiir nin baa wuxuu soo qoray tiir baa naga baxay tusaale mudna haddaan nahay خالد مولى qabiilaystayaasha خالد مولى marka خالد durba baroordiiqdii baa maaragta halkaa muxuu ahaa soo dirayaa murtimaalow eeg dee faar baa barnaamij baa fiiri kusoo qaban doonta iska eeg ilaali hal mar hal meel baan wax idinka tusayaa maanta magacaan leeyahay aniga soomaali baa ii yeer tax ilaahay ka sokow eeg dhalinyarta maanta aniga soomaali oo dhan hadday gacanta isqabsadaan wallaahi oo bilaahi oo tolaahi oonay qabiil eegin oon qabiil la fiirin oon dib loo eegin war xilli waxaa lagu jiraa adduunyaduba ay sara martay haddayse inta qabiil la eegin inta hal mar wada hal af la wada noqdo ilaahay wejigii soomaaliya heer saray gaari lahayd hal dila iyo hal qabsada iyo hal takooro lama arkeen wallaahi bilaahi talaa way awoodaana idin leeyahay intaad gacmaha isqabsataan oo qabiil iska daysaan soomaali weyne waa ay maqlaysaan qabiil inta halkaa iska dhigtaan nolosheen iyo horumarkeen iyo adduunkeena aan ka tashanno adduunyadeen iyo magaalooyinkeena quruxda badana ilaahayna siiyey رفع وحسو قرية مسؤول إنه خلق بيانات كبحي insha allah abwan waan kaasii deganaa dad badan baa meesha saarno janiska siinaynaa kolley aad baan kuu salaaminaa adiga iyo madaalo ما ينبع برامج هاي شقيسي وأنا قلت أحكي fanaanadeena لنا يا soomaaliyeed وبلن marba waan وحواي بلن taageernaa كذا إنك هذا وين صعونس إن شاء الله وأنا وفيني abwan ii kaadi dee deg deg badan hadalkayga yar baxba allaha ku barakeeyo allaha ku bar aad baan nimca kuu salaaminaa khadrow fanaanad if iyo aakhirana waad liibaanaysaa wallaahi allaha ku liibaan thank you fanaanad hal mar inaad ii ducaysaan jeclaayo waa jijigaaga qof kulaada hal mar inaad ii ducaysid habeen maaragtay ramadaan dhammaada inaad ii ducayso anna ilaahay halkaa aad murtimaad u ninka geliyey habartoo ahaabaa jigaawi mise qof kale haa asagii weeyaan inaad ii ducayso xagga qabiilku in ilaahay iga ilaaliyo oo wiil qaran noqdo iigu meeday ducaynayo gabadhaydii gabadhaada way joogtaaye iska aamusoo dhowr qofaa ku daawanaysa ii ducee haye waan aamusay habarir macaan dhib male ii ducee amiin baa qoryaa yar inuu ilaahay ilaahay naqa qabiilaha naga madoobeeyo amiin amiin walaalayaal waa rabtaan amiin intuu dambaysay ilaahay qarannimahana